dad kisto aniga mana idinka xishoonahay canyaasiin waxa laga soo dhaadhacsiiyay igu riixayaan inaan ahay nin leeyihiin ninkan waa nin reer Muqdisho aniguna de ceeb uma arka qof kasto Soomaaliya wadankan jooga Muqdisho ka yimid waa ku faanayaan caasimadda Soomaaliya ku dhashay markii la weydiiyay su'aasheed sidee ninkan baan ku saartay oo yiri waxa kala tashtay qabiilo Soomaaliyeed oo imaamo masaajidda culimo dad wax garada oo Soomaaliya inuu yiri siyaasiyiinta Soomaalida la doortay Minnesota ayaan kala tashtay inaan la baangareeyaa oo noloshayda inta ka dhiman aan heli karin xisbiga dimuqraadiga endorsementigiisa taas waxay runtii ceeb ku tahay oo fadaxa weyn ku tahay dadka Soomaaliyeed maanta waxaan haysanaa Aisha oo muslimad oo hadda hadashay reer Pakistani waaye waa gabar yar 25 sano xataa maynan gaarin aniga campaign-kayga ee manager-ka ahaan jirtay maanta meesha aan joogno meel aan ka laaban karna ma aha waa meel aan u baahannahay hore inaan u sii baxno inaan idinku tashana u baahannahay dadkiinaan qolka ku jiro waa tahay daawadayaal soo dhawaada Nasri Warsame oo dabcan sheekadiisa aad hore ugu warqabteen ayaa mar qura shaashadaha ka soo muuqday isagoo xanaaqsan isla markaana dadka taageerayaashiisa u sheegay in la qaadacay oo la mamnuucay inuu xisbiga dimuqraadiga uu ka mid noqdo isla markaana doorasho uu soo istaago wiilkan dhalinyarada ayaa dabcan waxa uu sheegay in arimo qabiil lagu haysto oo isla markaana uu leeyahay hab qabiil ayaa la iga heeliyay waliba waxa uu sheegay dad siyaasiyiin oo xisbiga dimuqraadiga ku jiro iyo ahlan Congress-ka ay ka shaqeynayeen inuusan soo istaagin oo markaas uu doorashada ama xisbigaas uu ka mid noqon wiilkan ayaa u taagnaa Minnesota gaar ahaan area Carmel oo runaantii uu shacbiyad badan ku lahaa waxa maanta uu sheegay in loo diiday isla markaana laga mamnuucay inuu xisbigaasi uusan ka mid noqon waana qofkii ugu horeeyay sida uu sheegay ee loo diiday inuu halkaas ka mid noqdo taariikhda Mareykanka runaantii wiilkan ayaa baraha bulshada aad loogu hadalhayay waayihii dambe isagoo markaasi Soomaalida ay ku eedeynayeen inuu baraha bulshada ku soo bandhigi jiray arrimaha isir naceeb ama qabiilada Soomaaliyeed qaar ka mid naceeb oo uu muujinayay waxa uu sheegay siyaasiyiin inay ka dambeeyaan arrinka hase ahaatee ma uusan cadeyn siyaasiyiinta arrintaasi ku lugto leh balse dadka ayaa waxay u badinayaan xildhibaanada Congress-ka Mareykanka waa Ilhaan Cumar inay ka dambeysay balse warkaasi ma cadda inkastoo xildhibaanada ay hore u sheegtay inay mar kastaba taageero u tahay qofka Soomaaliga oo aysan ugu hiilinaynin qof kale gabadha wiilkan la tartamayso oo gabar Hindi oo isla markaa lagu magacaabo Aisha ayaa dabcan waxay in badan la soo shaqeysay oo ay garabkeeda ahayd xildhibaanad Ilhaan Cumar dadka siyaasadda daroosana waxay leeyihiin maadaama ay ololaheeda qayb weyn ka qaadatay waxa ay u xaglinaysaa oo dadkana u badinayaan in Aisha dabcan xisbigaasi inay ka mid noqoto ay ka shaqeynayso Ilhaan Cumar halka wiilka Soomaaliga dabcan la gacan bidixeenay runtii waa ayaan daro weyn in maanta qof Soomaaliyeed loogu heliyo qof kale oo ajnabi daawade maro inaan muuqaalkeedu ku dheereeyo asla daawana marka koowaad Nasri Warsame oo arrinkaasi si faahfaahsan uga hadlaya marka xigana waxaan soo daawan doonaa muuqaal kooban oo Ilhaan Cumar ee kaga hadlayso sida ay mar walba u garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed isla markaana aysan marnaba ugu heelinaynin qof kale oo ajnabi waxaan jeclaan lahaa in dadka Soomaalida halkan joogo u sheego dhibaatada ugu weyn oo dadkeena qabaan maanta halkan taagan inay halkan ku soo gaartay kala qaybsanaan dadkeena kala qaybsan yihiin in bulshadeena maanta ninka DFL xukumo oo jeerka inuu soo baxay intuu baxay oo yiri markii la weydiiyay su'aasheed sidee ninkan baan ku saartay oo yiri waxa kala tashtay qabiilo Soomaaliyeed oo imaamo masaajidda culimo dad wax garada oo Soomaaliya inuu yiri siyaasiyiinta Soomaalida la doortay Minnesota ayaan kala tashtay inaan la baangareeyaa oo noloshayda inta ka dhiman aan heli karin xisbiga dimuqraadiga endorsementigiisa taas waxay runtii ceeb ku tahay oo fadaxa weyn ku tahay dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan ma umaleynaya in qof Soomaaliya oo walaalkeeyo oo wadankan u soo istaagay dadkiisa inuu qabto inaan ogolaan lahayn wax lagu sameeyo in aan Soomaali ahayn oo dadka Soomaaliyeed yiraahdo intuu soo istaago siyaasiyiin iyo hogaamiyaashooda la hadlay dadka Soomaalida kala qaybin midaan aqbalayna maaha
mid ay maanta qabato shakhsi ahaan maaha dadka halkan degan oo areadan Carmel areadeeda iyo meeshan ka tirsan degan qof kamida oo la wareysto oo loo imaado ma jirto culimo ayaa la hadloo dhahay kaaba qabiilo ayaa la hadloo dhahay siyaasiyiin ayaa la hadloo dhahay oo Soomaalida matasho waxay ahayd in qofka Soomaaliga ee codkooda shaqo ku guuleysteen inay ilaaliyaan oo difaacaan laakiin maysan ahayn in maanta kulligood isku raacaan in aniga xisbiga endorsement aan raasakeen oo li mamnuuca forever wax aan dadkeena qaban weey waxa tartankan ugu jira in qof kasta Soomaaliya aan codkiisa ku hadlo difaaca sharaftiisa karaamadiisa laakiin in siyaasiyiin isku bahaystay wax Soomaalnimada ka baxsan ka hooseeyo iguna colaadinayo wax dadka qaar ay fahmi laayeen oo igu haystaan kaliya laga yaabo in qaarkood sida dadka aaminsan yihiin in aan reer Muqdisho ah oo Muqdisho kiimaan goorma ay noqotay caasimada Soomaaliya wax laga faaro noqoto wax qof lagu dhaliyo waa ku faaraya inaan Muqdisho ku dhashay inaan nahay reer Muqdisho laakiin taa macnaheedu ma inaan qof Soomaaliya oo tartamayo oo walaalkay aan ku dhibaatay lahaa maxaa u tartamaysaa oo aan dadka kala safar lahaa maanta dhaqada koor waxa jiray qof shakhsi oo ganacsada oo magaalada laga yaqaan oo wadaad sheeganayo inuu social media isku soo qoray sawirkii qaatay inuu yiri hal la support gareeyo gabadha la tartamayso inuu yiri wiilkani siyaasiyiin dadka intuu iska soo orday inuu siyaasadda iska gal oo inuu dadka la tashtaa qofka sidaa u hadlayo wuxuu mas'uul ka yahay iskuul ku yaalo oo mas'uul ka yahay South Minneapolis carruurta dhigata waa carruur Soomaaliyeed qaarkeen annaga ayay waalid wax muusan qiimeen hadalkiisa macnaha u sameeyay asaga kaliya ma waxa cad kan Martin wuxuu isticmaalay oo devil chair ah wuxuu isticmaalay in dadkeena ay tahay waxyaabo la isticmaali jiro oo divide ka kuray bulshada in dhibaatada haysato Carmel area public safety geena in dadkeena dhibaato ku qabaan oo hooyooyinkeena jidka marilaayeen oo la laynayo oo maalin walba xabad ka dhacayso qof uu hadlaysa jirin marka uu soo istaag dadka dhibaatadeeda haysato inaan u dalqadan inta siyaasiyiin Soomaaliyeed isku bahaysteen oo magaalada joogo in la carqaladeeyaa in la dhibaateeyo oo isku raaceen in ay gala saftaan qofka Soomaaliyeed shalayna lagu doortay ayagoo cod Soomaaliyeed shal lagu doortay Soomaaliyeed ma matalina inay dhahan waxa nasiib darre in maanta dadkeenu ka aaminsan yihiin arrimaha noocaas oo bulshadeenu maanta meel xun ay marayso marka waxaan rajaynayaa in arrintaas dadka Soomaaliyeed ka dhigayaan la aqbalin kooxo yar oo fikir qaldan aaminsan oo dadka Soomaaliyeed kala qaybinay waxa wadankeena uga soo cararnay waa dhibaato ka dhacday waa arrinta maanta ka taagan Minnesota dhibaatadaas ka dhacday awgeed ayaa halka maanta joognaa marka waxaan rajaynayaa arrintaas wax ka qabano waxaan u taaganaa bulshada Soomaaliyeed inaan dhibaatada haysato wax ka qabto inta kraankeyga anigoo dadka wax taradka waayeelkeena wax garadkeena halkan degan South Minneapolis aan kala tashanay marnaba ma aqbalayno siyaasiyiin noocaasa iyo kuwa la mid in hor istaagan waana guuleysanaynaa waa tartamaynaa waxyaabaha media ka maqlaysiin ha dhageysanina cid naga hor istaagi karto wadan dimuqraadi ah ku nool waa tartamaynaa waana guuleysanaynaa kuwaas iyo kuwa la midana marnaba naga hor istaagi karnaa in dadkeena garab istaagno oo difaacno sharaftooda iyo karaamadooda diinteennana aan been ka sheegin annagoo qancinayno kuwa doonaya isticmaal lagu xukumaan waa maasantii waxaan u maleynayaa hadda annaga reer Minnesota haddii aan nahay meel kasta aan fiirino waxaa joogo qof Soomaali ah oo na matalo haddii aan ka fikirno school boardka aan ku soo bilownay walaalkeen Ilaahay u naxariistay Xuseen Samatar uu noogu fadhin jiray wuxuu ahaa qofkii annagoo dhan jid weyn noo furay oo na tusiyay inaan tartami karno isku tashan karno annaga waxaa ku xigay Keith Ellison oo aan u dirsanay Congress oo muslimnimo noo matalayay waxaa noogu xigay walaalkeen Cabdi Warsame oo City Councilka qofkii ugu horeeyay noqday maanta waxaan haysanaa Aisha oo muslimad ah oo hadda hadashay reer Pakistani waaye waa gabar yar 25 sano xataa maynan gaarin aniga campaignkeyga ay managerka ahaan jirtay hadda waa City Council woman waxaa kaloo City Councilka noo fadhiyo Jamaal Cusmaan oo wiil Soomaali ah aniga markii aan u tartamayay state representative dadka badanaa maynan aaminsaneen waxay dhihi jireen waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ilhaanay ma ku suurtagelayso waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ciyaalkaaga iska korso ilmo yar yar haysataa walaalay ilmahaaga iska korso waan ogaay in ay suurtageli karto idinkoo dhanna waad aaminteen waad
waad i garab istaagteen ilaahayna guul uu nagu siiyey aniga in aan fursadaasaytii aan helo alxamdulilah maalintii aan go'aan ku gaaray in aan congress u tartamo Keith Ellison uu yiri attorney general aan u ordayaa waxaan xasuustaa Soomaali badan qaar qolkan ku jiro oo dhahayo miro guntaada kuugu jiro mid geed saaran looma daadiyo kulligood waxay dhaheen walaalayaalow dhagaysta Keithna kursigiisa ha ku fadhiyo congresskiisa naga joogo adigana meeshaada fadhiyo state representative noo ahaaw hal kursi aan haysanaa kaasna hal kursi aan haysanaa yaanan beelin alxamdulilah ilaahay go'aan gooni uu leeyahay annaga waxbaan ku tashanaa laakiin ilaahay taladiisa waa mid gooni ah ilaahay wuxuu ogaa in aniga ay iga dambayn doonaan Hodan Xasan oo state representative noo ah in Maxamuud Nuur uu iga dambayn doono in Umar Faata aan doono in alxamdulilah maanta saddexdoodii oo kursigoodii ku fadhiyo laba kaleeta aan ku darsanayno Samakaab iyo Zainab ay socdaan taasna waxba maanan ku weynina waxba noogu saa'iideeyay ilaa anigana korkaas waa ku raayay Keithna attorney general uu noo noqday marka maanta aan isweydiino sababta annaga codkeennii qalqal ugu jiro sababta Keith Ellison uu maanta Soomaali u baryaayo uu Soomaali u dhahaayo kaala ii soo baxa sidii aniga kursiga aan ku fadhiyo aan idinkugu sii fadhiyo idinku matalo qofka kaliya muslim ah Minnesota kaliya aanan ahayn waa meel kasta America hal qof muslim attorney general ka ah waa muslimka jagada ugu weyn America ku fadhiyo marka ma ahabo inuu Keithna baryo annaga waxay ahayd in saf dheer aan galno oo annaga aan Keith dhahno goormee ku soo codeyn karnaa intee mari karnaa yaa register gareyn karnaa meeqa lacaga u baahan tahay Keith maanta inuu lacag dadka baryo Keith maanta inuu cod baryo Soomaali iyo muslim uu ka baryo waa wax calool xumo ah aan loo dul qaadan karin inta kaliya intaas ay ku suurta gashayna waxa waaye dad kastoo aniga mana idinka xishoonahay canyaasiin ah waxa laga soo dhaadhacsiiyey in annaga dadkii muslimkana matalayay oo aan rafaadka ilaahay ogaa aan u soo galnay in maanta aan helno Minnesota inay noqoto state-kii dadkoo dhan tusaale u noqday maanta annagii inaan noqono dad tuugtamaayo dad laga dhaadhacsiin karo dad walaalkood ah ku jinsi ah ku diin ah oo inta ilaahay ogaay rafaad u soo maray oo noloshoodii badbaad u laa oo maalin ilaahay keen lacaynaayo oo joornaal kasta xumaantooda lagu soo qoraayo daraadeen muslimnimo jinsi ahaan ay nagu dafaacayaan in maanta annagana laga dhaadhacsiiyo kuwan aanoo daran say ku suurta geli kartaa aniga adaan kugu abtirsadaa turjubaan miyay u baahan tihiid marka aniga ila hadlaysid hadda Soomaaligayga aad u sii fiicnaadaybo aniga turjubaanayga ma baahan tihiid fiiri maanta jidkaas haddaa maraysid aniga aan kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira ii sheegan kartaa Maxamuud hadduu kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira u sheegan kartaa Hodan hadday kaa soo horbaxdo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira u sheegan kartaa ma haysataa dad kaleeto oo saas ku yeeli karo qof kasta waa inaad turjubaan u raadsatid fiiri 100 Republican ay wataan 100 Republican ay wataan oo waxay ku leeyihiin kaale u coday turjubaanay soo ijaarteen oo Soomaaliya oo anaga nagu abtirsado marka bari marka adiga wax ka doonaysid turjubaan u baahan tahay ma annagii oo haysano qof annaga aan u tagi karno oo codkeena ugula hadli karno afkeena ugula hadli karno oo danaheena already og ma naga dhacsiina maanta qof kale ku bedel oo qofkaaga turjubaanayo ما أنا لقنا دعسينا ما أنت قف كله كبدل أو أبري يسيد أو أده يسيد شاك غير أو قل يسيد أنا قودن ثبلو أنك إماضي
saani saan waay afaarahayga dhibkaanaan qabaa ciyaalkayga iskoolka saanaa loogu dhibaa because qamaaray xirataa qabaarka aan kuu fasiro maxaan ka hadlaynaa Minneapolis ciyaalkeena iskoolka ay dhigtaan maanta waxaan haysanaynaa 2 school board member haddii iskool iyo ciyaalkaaga iyo waxaa laga dhaadhacsiinaa lagu dhahaayo 2 qof aa ku joogo oo afkaaga ugula hadli kartid oo hooyo iyo aabe Abdul wiilashiisa ayaa dhawayta dhowr albaaba ila garaacayay wiilkayga way egyihiin uma baahan tihid qof inuu kaaga turjubaano Abdul markii uu ku fadhiyo city councilka school boardka Somaha ciyal badan ay haay muxuu ciyal badan yahaan waay ma aha anaadu qof Soomaali ila tartamaayo kayf uu la tartamay nin kale oo Muslim oo Soomaali waa fahmeena wax gorgortan waa isjiidan jirnay okay waay kaas laakiin waxaas kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa gool aan gaarnay annaga oo adduunyada oo dhan tusaale ay noo arkaan aad maanta rabtiin inaad daadisiin maxaad u daadinaysiin dadaa wax idinka dhaadhacsiinooyo su'aal badan aa jiro dadka markay ay weydiiyaan aan rabaa kastoo yar inaa idin taabto maxay dadkaan idin qabteen su'aashaasaytii waa su'aal kastoo jahwareersan waxayna u jahwareersan tahay ma qofka waxbuu kuu qabtay adaa og mase ma ogtihid fiiriya aniga shaqaalaan ahay city councilka aan u shaqayn jiray meeqa qolkaan ku jirto xasuusato 7 sano ka hor in maqaayadaheena loo ogolaaday ramadaanka intii ay rabaan habeenkii inay furnaadaan $2 milyan aan keenay aniga bildhimadoo dhan hadda sprinkler la gelinooya markaa dhahdiin maxaa noo qabateen isweydiiya ma aniga ogeyn waxa la qabtay mase wax ma lii qabanooyo Keith Ellison Congress markii uu tagay wuxuu ahay qofkii Muslim ugu horeeyay oo namatalo hearingyaalka markii la suubiyo meeshuu soo fadhiisan jiray oo la dhahay annaga dhan terroristaan nahay wuxuu xasuusin jiray dadka in aan nahay annaga shaqaale inaan nahay aabbo hooyo dad ka mid ah waddankan inaan nahay waa ooyay TV-ga oo kaamirooyinka oo dhan fiirinayaan uu ilmeeyay asoo qof weyn ah muxuu ilmeeyay dhibkeenu og yahay annaga dareenka adiga aad dareemaysid uu ku dareemayaa because asiga waa qof Muslim ah oo ilmo waddankan ku korsanaayo marka maanta ha ogolaanina igara leeyahay hadaan qiiliyayna ha ogolaanina in la idinka dhaadhacsiiyo inta dadoo Muslim ah haysatiin oo habeen iyo maalin ku soo kaco kuna seexdo in idinka ay idin difaacaan in idinka waxay idin soo dhiciyaan in ciyaalkiin ay ka shaqeeyaan iskoolsay ku heli lahaayeen in idinka aan discrimination iyo midabta koor la idinku suubin in idinka airboryaalka aan la idinku qabsanin idinkaan idin dadaalnaa anaga wax kale uguma fadhino booska aan ku fadhino marka haddii aadan ku fikiraynin oo ama aad taqaanid qof aan ku fikiraynin inuu kiis u codaynin waxaan u baahanahay intii aan hadda idin sheegay in aad u sheegtiin in aad gigishiin in aad ka dhaadhacsiisiin wax qalad dadkan in laga dhaadhacsiiyay in la rabo iyaga in guushi ay gaareen iyo waxyaalihii badanaa ay ku tashanayeen laga qaado maanta meesha aan joogno meel aan ka laaban karna ma aha waa meel aan u baahannahay hore inaan u sii baxno inaan idinku tashanaa u baahannahay dadkiinaan qolka ku jiro waa tahay daawaday ilaa dhamaadka muuqaalka haddii aad nala joogto waxaan ku leeyahay waad ku mahadsantahay la joogistaada haddii aad nagu cusub tahayna waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in aad nagu soo birto ma tahay waalid ku nool qurbaha mashquulka faraha badan ee qurbaha yaala adiga iyo ubadkaaga ma idinka mashquuliyey barashada qur'aanka kariimka mar walba walwal ma kugu hayaa xadiiskii nabigeenna nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ee ahaa alqur'aanu xujjatun laka aw calayka maalinta qiyaame qur'aanka adiga ayuu kuu doodayaa ama kaa doodaya haddaba macadka daaruraxma qur'aan online waa xalka mushkiladaada waana mid ka mid ah dugsiyada faca weyn isla markaana ay ka faa'iidaysteen waalidiin badan iyo carruurta ku nool qurbaha